waxa uu tirakoob ku sameeyey ciidamada, waxa uu bedelay qaab dhismeedka ciidamada, waxa uu bedelay hoggaanka dhexe ee ciidamada, waxa uu meesha ka saaray tobaneeyo qandaraas oo adeegga ciidamada ah oo si musuqmaasuq ah lagu bixiyey. waxa uu u bareeray khatar uu xilkiisa ku waayi karay si uu u dhiso libaaxyadii geeska Afrika. ciidamada xoogga dalka waxaa bari lagu tilmaamay in ay ahaayeen mid ka mid ah ciidamada ugu xooggan qaaradda Afrika, balse waxa ay burbureen 1991kii markii uu dhacay xukunkii militariga. waxaa burburay wax walba oo ciidamadu lahaayeen, haba ugu darnaatee haybadoodii. waxaa soo ifbaxay maleeshiya beeleedyo, waxaa dhacay dagaallo sokeeye iyo dagaallo kooxo dhex maray. muddo rubuc qarni ah kadib markii la dhisay dowladda federaalka ah, waxaa la waayey ciidamo difaaca dalka iyo dowladdaba, waana sababta keentay in loo baahdo ciidamo ajnabi ah. AMISOM 10kii sano ee la soo dhaafay oo ay ciidamadan dalka joogeen waxaa ku baxday balaayiin dollar, balse xukuumadihii xilligaa joogay isma weydiin ilaa iyo inta ciidamadan lagu tiirsanaan karo 50 sano, hal qarni mise weligeed. ra'iisul wasaare xasan cali kheyre markii ugu horreysay ee uu xafiiska fariistay waxa uu la kulmay taliyayaasha ciidamada. waxa uu caddaatay in aysan jirin cid caddayn karta tirada ciidamada dalka, hubkooda iyo goobaha ay ku kala sugan yihiin. intaas kadib waxa uu ku dhawaaqay hawshii ugu weyneed ee amni, dib u habaynta ciidamada, arrin horey loogu babacdhigi waayey. diiwaanka dowladda waxaa ku jiray ku dhowaad 30,000 oo askari oo militari ah oo dowladdu bixin jirtay mushaarkooda, saadkooda iyo hubkooda, balse markii la tagay goobihii ciidamada tiradaas waa laga waayey. sidaas darteed ayay xukuumaddu ku dhawaaqday diiwaangelin elektarooniga ah. diiwaangelinta casriga ah oo lagu ururinayo xogta askari kasta oo ay la socoto nidaam aqoonsanaya indhaha iyo faraha si looga hortago in 2 jeer la isdiiwaangeliyo. waxa ay qaadatay muddo 7 bilood ah in la soo dhammaystiro diiwaangelinta oo lagu samaynayo dhammaan ciidamada xoogga ee kala jooga dalka oo dhan. taliska ciidanka xoogga dalka ayaa markii ugu horreysay aqoonsaday magaca askariga, da'diisa, darajadiisa ciidan, xaaladdiisa caafimaad, aagga uu ku qoran yahay, xisaabtiisa bangiyeed, xiriirkiisa rasmiga ah iyo xiriirka ehelkiisa. balse dhanka kale waxaa gadooday qaar ka mid ah ciidamada oo aagaga ka soo baxay, isla markaana waxaa la siyaasadeeyey dib u habaynta ciidamada. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda ee horay qaybta uga ahaa hawshan ayaa dib uga degay kadib markii ay arkeen halista ay yeelan karto. balse ra'iisul wasaaraha ayaa xilligaas ku yidhi oraah caan ka dhex noqotay shirarka sarsare ee mas'uuliyiinta dowladda: haddii aan xilkayga ku weynayo xitaa kama laaban doonno in aan ciidan qaran dhisno. goormee ayaan dowlad noqonaynaa haddii aan dhegaysanno siyaasi dan gaar ah ilaashanaya? natiijada tirakoobka waxa ay ahayd halka sartu ay ka qurunsanayd oo musuqmaasuqa ugu weyn uu ka jiray, markii la ogaaday ku dhowaad 10,000 oo askari oo aan jirin in ay ku jireen tirada ciidanka. ku dhowaad 2 milyan oo dollar ayaa la lunsan jiray bil walba. maadaama mushaarka ciidanka oo kaash ah bil walba la soo qaadi jiray, waxa ay fududaysay in wax la isdaba mariyo. dhammaan ciidanku waxa ay helaan mushaarkooda iyadoo aysan jirin cid u dhaxaysa askarta iyo bangiga dhexe ee dowladda. mushaarku waxa uu si toos ah ugu soo dhacaa xisaabaadkooda bangiyada. raashinka ciidanka waxa uu ahaa caqabad kale oo musuqmaasuq dartii lala fahmi waayey. waxa uu ku salaysnaa qaab musuqmaasuq ah oo aan lala xisaabtami karin. gebi ahaanba shirkaddii qandaraaska ku haysatay ayaa laga hakiyey, iyadoo go'aan lagu gaaray in dib loo xayeysiiyo lana kordhiyo shirkadaha ka qayb noqonaya iyadoo lagu salaynayo tirada cusub ee ciidamada. waxa ay ahayd caqabad kale oo uu u bareeray ra'iisul wasaare kheyre, balse uu ku guulaystay. hadda waxaa la hubiyey in ciidanku helaan raashin tayo leh kuna filan oo aan kala go'in, iyada oo aan la xadin lacagta dowladda. hoggaanada cusub ciidamadu waxa ay u dhisnaayeen habmaamul ku salaysan kii Midoogii Sofiyeeti, maadaama uu ciidanku isaga soo dhisay.
si ay ula jaanqaadaan kan casriga ah ee dunida iminka ka jira ayaa waxaa loo wareegay qaab dhismeedka ciidamada NATO oo ah kan ugu casrisan uguna sahlan nidaamyada iminka dunida ka jira. ma jirin cid horey ugu dhiiratay wax ka beddelka maamulka dhexe ee ciidamada oo ah halka uu ciidanku ka dhisan yahay. waxaa si furan loogu tartamay hoggaanada ugu muhiimsan ee ciidanka xoogga sida maaliyadda, saadka iyo ciidanka. waxaa ku soo baxay saraakiil dhalinyaro ah oo ka soo baxay kulliyadda ciidamada oo iminka wax weyn ka beddelay maamulka ciidamada. kadib markii la aqoonsaday nooca tababar ay u baahan yihiin ciidamada ayaa waxaa la bilaabay tababaro gaar ah oo lagu soo saarayo ciidamo tayo leh. tirada ugu badan waxaa diyaarinaya xarunta tababarka ciidanka ee Turkisom, halka qaybo kalena ay dhowaan bilaabayaan sida xerada tababarka Ingiriiska. waxaa la tirakoobay ciidamada, waxaa la hubiyey in ay helaan xuquuqdooda, waxaa lala dagaalamay musuqii, waxaa loo dhammaystiray tababarkooda, waxaa loo dhiibay hoggaan aqoon leh. kadib waxaa bilowday howlgallo la dareemay in uu ka duwan yahay howlgalladii hore. ciidamadu gacan waxa ay kula dagaalamayaan cadowga, gacan kalena waxa ay ku caawinayaan shacabka. howlgalka ciidamada ayaa waxaa hogaaminaya ciidamada Soomaaliya, halka howlgalladii hore ay AMISOM garwadayn ka ahayd. qorshahan cusub iyo dib u habeynta ciidamada ayaa waxaa u riyaaqay bulshada. sidoo kale waxaa qiray saaxiibada Soomaaliya oo qaarkood ay horay u joojiyeen kaalmadii ay ku bixin jireen ciidamada. dowladda Mareykanka oo taageerada ugu badan dhanka militariga siin jirtay dowladda Soomaaliya waxa ay 2017 joojisay taageeradii sababo la xiriira musuqmaasuq baahsan oo xilligaas ka dhex jiray ciidamada. balse kadib dib u habeyntii iyo fulintii qorshihii Kheyre waxa ay qireen isbeddel ka muuqda, iyaga oo dib u bilaabay caawinta ciidanka xoogga dalka. dib u dhiska ciidanka xoogga waxa uu u baahnaa go'aano adag, daacadnimo iyo saraakiil ammaan ah, aqoon u leh ciidamada oo nadiif ka ah musuq. Kheyre waxa uu ifiyey waddadaas dheer oo sanado qaadan karta, balse u baahan in la joogteeyo si dib loogu soo celiyo dibaaxyadii Afrika.